because hal xaafad laba gabdhood lagu dilay waa hal xaafadood tii labaad laga aasay birintu saddexda soo socoto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي القارئة وراشين الزيو إذن الله أنا وعفمات قواعد دمتني وحيد رجينا إنا عفمات قبطان مالو البدوني ذا كجوكتان سوري دبادة ومركلا إيو فيديو عصو فيديو كان وكدوين هاي فيديو كي هوري وحنا هالكان تعسينينا قوار أبايا وكدمتهي دالكان قاهرو الله أنحرستا أيان لي هاي naf walba geeridu ay dhimanaysaa qof dunidan ku sii baaqi noqonaya ma jiro nin walba uu dhimanayaa ayadani hadda waxay ay sababsatay gacanka xaq daran oo waxay bixishay faras ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto gabadhan abaayo maalmo ay aasan tahay sabab ayaan hadda ugu hadleynaa aniga horta mar alla markaan maqlay geerida gabadha waa aan u duceeyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u aqbalo qof walba oo muslina markaad maqasho in uu geeriyooday waajibka ku saaran wuxuu yahay in aad u duceyso oo dhaxda Allah u naxariisto oo ilaahay u barisaa laakiinse beledkan aan ku noolnahay ama magaaladan qaahiro ayaa waxaaba ku noolba dad aad u xun maanta in aan fiidiyogan duubanay ayaa igu kalifay ayaa igu kalifay waayo qof dhintay ayay caynayaan 24 saac waa dad aad u xun dadkan ma la dhihi karo waa dadkeena waa dad Soomaaliyeed waxaaba leedahay waa Ethiopian af Soomaali bartay ummadan qaahiro ku nool ma garanayo waxa ay kala jeedaan muddo laga joogo dhowr bilood ayaa waxa geeriyootay gabadhaas ayaa waxay u geeriyootay dur afraad in ay ka soo dhacdo gabadhii markii geeriyootay isla markiiba waxa meesha imaadeen dadka wadanka iskale askartii markay imaadeen gabadhii meedkeediina waa la qaaday waxaana saldhiga loo waday ninkeeda oo waqtigaas guriga la joogay asigoo la leeyahay asiga ayaa soo tuuray uu isbadbaadiyay muxuu isku badbaadiyay wuxuu yiri gabadhan waa ay waalneedbo reerkeeda markay isiinayeen gabadhan waxay aad gabar dhimirka loogu jiro okay waa la baaraa lahay muddo kadibna gabadhii bartii ayaa loogu haray bartii ayaa lagu iloobay waayo gabar xanuunsan maskaxda ka sii xanuunsan in la soo aroosiyo wayba waalantahay sidee guri u dhaqaysaa okay waa lagu soo aroosiyay maalmee kula joogtay intaas oo dhan waalideeda ma arkin maxay u dhiiweysay gabadhan way ay waalan tahay mana awoodi guriga in aan kaligeeda ugu tago la markay dhimatay ayay waalatay mar walba oo geeri dhacdo qofka kaliyo la aflagaadeena wuxuu noqonayaa marxuumada qofka markaas geeriyooday waa laga soo tagay waxa gabadhaas ka sii horeysay gabar kale oo isla xaafadaad gabadhan ku dhimatay ayadana ku dhimatay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto gabadhiina markii la ogaaday in ay dhimatay askartiin qaadeen lana soo baaray ayaa cirbad ayada isturtay in ay u dhimatay la ogaaday cirbadaas ayaa waxa u bedelay ninkaas ilaa ay hadda wax sharciga ku soo qabtay malahan ama dabagal ku sameeyay xataa ku cadeeyay qof walba uu aamusay okay waa aamustay waa cabsatay maxaa u cabsatay ku dhima laakiinse waay marxuumad u aflagaadeeni waay qof dhintay oo Ali subhanahu wa ta'ala waqtigaas la xiriiray war ininka ay been leedaniyo ku jirtaa meedadka ay xamanaysiin joojiyo hadii aad tihiin dumarka qaahir ku nool kaligood maahan xataa ragga gabdhaha sida dukaamada iibiyo ama maqaayooyinka oo u imaanay ragga ayagana in ay iska dhigaan rag fiican oo is amaanaan kadibna gabar dhulka ka hoos martay geeriyootay hortaada lagu caynay adigana waxba aad ka soo qaadeenin taas damir xumo ay ku tahay ragga waxaan leenahay way inagu soo duulinaa maanta hadii adig ee ka maqantahay berita ay kugu soo socotaa dhaliirsan sheekada ninka dilay waa nin Soomaali ma nin ajaaniba waxaad la cabsato oo la aamusto meesha ma yaalaan Soomaaliya xaqiiqada hadii la isku sheego wadankiina ayaa soo qaribteen hadii aad dib geysatid waa lagu soo qabanaa waan lagu soo sheegaa sidoo kale mar kale ayaan waxaan leeyahay dadka magaaladan ku nool waa dad aad u xun waayo dhibaatada maalin ka dambeysay way soo tareysaa
dilka dumarka loo geysto uu soo badanaya weline ma aanan arag gabar cadaalad heshay maxay ku dhacday ninkan inuu ku dilo haddana in uu gabadhan garteeda uu baabi'iyo adigana gabadhii maskiinta la aasay aad sii war xumayso maxaa kugu kalifi karo cabsidaas intaas la eg intay kaaga imaaday inta kiisaskaas og haddana la aamusan cabsi darteeda gabdhihiina hortooda lagu sii aflagaadenayo tii la dhaho way waalan tahay tii la dhaho muqaadare ay isticmaal jirtay iyo tii la dhahoba maxaa nin ajnabi guri ugu soo xareeyay intaasba dadka og haddana arrintaas la aamusan in magaalada lagu caaynayo gabdhihiina haddana dadka sii og beri aday kugu imaanay tanoo kalena waa sugay ha isdhihin maanta yacni qof guul haysta ha isku maleynin ebra tahay xaasidaana tahay waayo adigoo wax walba og ay hadan la aamusaysaa waa la isku imaadaa ha dana iska soo gali karto gabadhan gurigeeda qofkan wuxuu ugu imaaday dan waay adiga waxa ka og tahay malahan kufsiya loo geystay tiri taas ma xaqeeji kartaa no adigoo intii og ninkan inuu gabadha gurigeeda ugu imaaday ku dilay adigoo og qofka nool ma xamadid ama caysid maxaa qofka noolaaba u jeedaa qof dhintay maxaa ma cabsanay qofka nool calashan uu ku imaanaa sawa igu cays maxay tahay ku dhaha uu iska kaacinaa laakiin qofkaasi ciidii koos martsoma awood ma lahan war alihi ni uunta ka cabsada ee dadka geeriyooday ka xishooda amaan balaaran siiya wax dhintay ay tihiin because hal xaafad laba gabdhood lagu dilay waa hal xaafadood tii labaad laga aasay birintu saddexda soo socoto haddii sheekadan ay ka dhidhii weydeen aana diidi weyseen in aad ka istaagtaan dhihi weyseen nama qabato maalin walba in nala dilo توكسو غوري دبدا ها او غشو البابكا خيرتو تليفون ها قبسطو وخي اود تليفونكاس ها كو شيغتو بيكاز تبرتادا انتاس نقطي صح تبرتاس انتاس نقطي سو ماهن اصحاب قاديغا مر كله ايا waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto gabdhihii naga geeriyooday aadan ugu xumahay waxa kaliya igu qasbay in aan fiidiyogan nila wadaagana waxay tahay gabar walbo markii marada cad loo xiro ciidan laga hoos mariyo in la aflagaadeeyo tan ugu dambeysay oo qabrigeeda oo qoyan yahay oo daradna naga geeriyootay oo ilaa ay haddana leeyahay maxaa nin guriga keenay ninkii oo nool gabadhii dusha laga saaray maxaa gurigeeda keenay gurigeeda dan uu imaan karaa because gabar ardayada ahayd haddana doctoreysad dalkeeda wax ka soo bartay inta wixii u timid in ay wax si ziyaadsato sidaas tahay haddana sii shaqaysato oo doctornimo ku shaqayso noloshii ayaa loo qoori waayay waa la dilay haddii noloshii loo qoori waayay ayadoo haddana yacni sharaf daro loo geysanaya in aan sii dhageysano aan la aamusno ani ziya waa ka dhidhiyay ma ogolaanayo mana ogolaa dooni gabadhaas cadaalad ay u baahan tahay haddii cadaaladeeda la soo qabo waay ama wax loo tari waay bariis nabadgeliye meedka nabadgelisiya wiilkii diriyaa nool asiga waxa rabtiin dhaha hadda asiga cabsateerne ilaahi dirtiisa ugu cabsada ayada because waa meed waa la dilay waa dulunsan tahay xaqay u baahan tahay cadaaladay u baahan tahay war dumaro hadii ininka isku heelinin oo ininka aan isgarab istaagin oo ininka aanan dhihin cadaaladan u baahanhay yaa waaye ninka cadaalad ni soo dhicinayo ma kan ni dilay mise kan ni dulminayo mise kan ininka ni dafirayo kaas miya cadaalad hadana ka sugay cadaalad afkaaga ku jirtaa wadan sharci laha joogtaa wax ala waxa ogtahay in aad sheegto oo kaliya ee gabadhaas cadaalad ku helay waa diidil uu qasbi ma بس نبتقولي سي قبضي صاحبتها أهد ولا شيء أهد إن عذرتها أهد سومالي كله أهد وح كله برتي كله نولد يعني أتقيني شرفت ذا يو وحتر كذا أتقيني واي أقولاني إن هرت هذا الوقعنا ولي أيضا ضعيف نقطي أو الدوقي أو لك كهوس مرتي سدا وأقولاني أوكي وأقولاتي سوماهن أنا ما أقولانا يو أضيالك qaxwooyinka fadhiisto dhalinyarada qaxwooyinka fadhiistaan gabadhaas nabadgelyisiya xaqeeda u soo dhici weyseen ma amaan balaaransiya ayada intii ku horeysaybo maanta marxubad agtaada lagu caayo beri hadana adaa dhimanaysa adaa lagu caayna beri damba tu kala dhimanayso waa la caayna khalaas ininka dhan waxaan noqonaysiin meed xanta marka meed caaye tala kala ma haysiin ilaa cabsiya barkinta uu la saarantiinay
asxaabta qaaliga intaan ayaan jeclaystay inaan nila wadaago wadankan aan joogno qof wanaagsan kuma noolo haddii uu ku nool yahayna gabdhaha 24 saac la dilaayo mid ka dhidhiye ayaan arki lahayn kulligiina waxaa tihiin dad xun hadaa hore ila joogtay waa ku mahadsantahay daawashada videogan haddii aad igu cusub tahay fadlan soo dhawow channelkuna waa channelkaaga subscribe dheh furo gambaleerka si uu ku dhaafin wax walbo aniga aan soo dhigo waa ziyo qeereysan oo idin leh dunida waa wax yar oo iska gaaban is xisaabi intaana la xisaabin ka hor bye bye